رسولك عليه الصلاة والسلام وحكى شيكيي من غاشها خائنها وقنع صداها قنع سيبو سمين شري لكن غشاش بوا غش بو دحق لينجا كواليتي كو قادي جري مادد وكيبينها دد اما درها اهادو اما كباها اهادو خمرغو كغنعسن جري marka ninkaas خمرغو كغنعسن جري badahu ku safri jiray intuu dooma ku qaado ayuu meel kala geyn jiray oo safin jiray marka khamrigu halaga yaabaa qofku inuu yiraahdo khamriga sida looga ganacsan oo shariicadan marka shariicadanu mamnuuc waa laakiin shariicooyinka hore inay ku banaaneed baa dhici karta hata saxaabatu rasuulillaah way cabi jireen Soomaaliya khamriga intayna aayaad muharramka soo degin way banaaneed waa la cabi jiray marka ummadii horena inay u banaaneed baa dhici karto ka ganacsan jireen khamrigu ka ganacsan jiray intuu sameeyo khamriga masnac buu intuu sameeyo ayuu sii qaadi jiray muxuu sameyn jiray markuu safriyo oo badda uu ku safro ayuu biyihii badda intuu qaado ku dari jiray ku badin jiray biyihii badda intuu qaado ama banaanka biyahooda intuu qaado ayuu maash quality ka qaadi jiray meesha ka soo qaado 5 litir oo saafi ay noqon lahayd 3 litir buu ku daraya oo kale imise isla noqon markaa 8 litir bino ama 5 kale ku daraya waxyaabo maanta la sameeyo waan dawooyinka sameeyna quality waxay u kala leeyihiin dawadu waa sameynta hore la sameeynayo ba dawada loogu tala galay 5 qof inay dawayso maadadeeda ba 10 la gaarsiinaya quality ka dhimanaya 15 dil la gaarsiinaya ka sii dari 20 dil la gaarsiinaya ka sii daraysa marka maadadii buu ku khaldi jiray biyo uu ku dari jiray markuu maadadii sameeyo biyo ku dari ku barxi jiray idan quality ga xumaanahay saasuu sameyn jiray qashaashkaas wuxuu lahaan jiray daanyeer carbisan oo la socda oo meeshu u kacaba raaci jiray uu ka haysan jiray carbisan daanyeerku uu jeeda markuu qishkan sameeynayo waa u jeeda biyaha uu ku darahayo waxaan uu sameeynayo daanyeerku waa u jeeda xayawaanaadkan aad aragteenna wayna hadli karin mooyaan daaqa idraaga oo wixii ay kala garanayeen buu rabbil caalamiin ku abuuray waxaana sameeynaysi wayna dhawaaqi karin laakiin si fiican buu u dareemayaa daanyeerka marka waa u jeedaa ninkan qishka uu sameeynayo biyahan uu ku khaldahayo waxaan uu sameeynayo edab daradana waa u jeedaa ganacsiga uu u raacaya ilaahay wuxuu qadaray maalmaha kamid rasuulka kaleey salaatu wasalaam kiyo soo gatay wixii alaabtu qaatay khamrigii biyihii isku daray uu qaatay soo gatay lacag u soo noqotay soo cadeey kiishkii wata doontii saaran baddi bartankeeda markay mar hayaan yaa daanyeerka baa intuu ku soo booday buu kiishi ka dafay fag kasi jaf buu kasi kala booday وانا بدي برتن كذي مرهيان فك wuxuu la fuulay doonta shiraaceeda kore alwaaxa yudusha kala fadhiistay waa kiishkii wuxuu soo shaqeeyo oo dhan ku soo guray lacagta halkaas uu la alwaaxi u goreey uu la fuulay war soo daji warkeen ma jirto marka xaraam iyo dulbi asameeyay xayawaankii baa ilaahay kugu diray oo gaarigii baa ka jabay oo wixii oo dhan baa halaabay oo faraskii baa marka diid oo zawjadii baa ilaahay kugu diray meeshii kor uu la fuulay wax kasta uu kula hadlay iyo wuxuu sameyn jiray oo dhan ku sameeyay mana fuuli kareed alwaaxu ka daba fuuli karamo waana badi bartankeeda meel kale u kici kara male markaas asagoo indhihiisa fuul yihiin oo fiirinayo ayuu kiishi gacanta gelin kiishu saa gacanta u gelin hal diinaar buu badda ku tuuri laba diinaar soo bixiyo iyo midna badda ku tuuri midna xaqiisii sadxiga u soo tuuri kiishka dhanna ay buuxiyo lacagta yuusaa ku dhameeyay gacanta u gelinaya laba diinaar buu soo saari mid baddi buu ku tuuray warkada baddi buu ku tuuri midkii kale xaqiisa u soo tuuri meesha sadxiga ahayd buu soo tuuri suusa u waday buu ku dhameeyay lacagta lacagta maxay noqotay markaa 50-50 bay noqotay 50 na baddi buu ku tuuray 50 na sadxi xaqiisa u soo tuuray macnaheedu maxay tahay intaas baddi lagu tuuro waa inta xaraamteeda wuxuu yiri badadka biyaha aad ku khaldaysay adiguna cuni maysid dadkii haddaad ku qaayantay adigana waxa way balaaya ilaahay kugu sallid intan xaqaada u soo tuuran waa intii saafidayd 50-50 buu ka dhigay marka 50 na baddi buu kaga shubay 50 kale xaqiisa u soo tuuray qisada maxaa laga qaadanayaa يعني قفكو هذا ظلم يا حد جذب يغشي يا حرام نما وسمية حيوانك بعد إله كسلد حيوانك إن ظلم جرال لكائن ولا قاضي داير كسوات كيسين وعي نك واحد من السماينة وبني آدم كوكو سماينة يغش كوكو سماينة داير كعربسنا اللي تشوج بوات كيسين وعي ولو فيرس هل كوا حلاقة قاضي بني آدم كدبات أتكيس يعني خير درديس يقلب جيسو هذا يقوله بني آدم وحي حيوانك داير كوات كيسين وعي وسوق شقي سنايا وفايدة وكرهدينايا دايرك اللي سعودنا ووقت كيسن ويدل بقى انت هذا هكذا العلماء الحديث فوائد كسر وحاكمده قفك النوع عاصمه ظالم كالنقضه
إلهي سبحانه وتعالى أصلا ماله ما إله وحكا صليد حيوانك أما غيرك أما ظالمك لا إله كصليد وهكذا العلماء اللي فوائد لقى قادنا هي حولها قفك حرام وكو كسبه أصلا وحاول ما كسبنا هي ما انتفع سنة هي أصلا ظلم بادكو سو قادته أدنى بلا يكلم إلهي كو صليد وأدنى ويكون عاف ما كسبنيس أدينا إذا ظلم قد باتده إليه غشي خائن ما تكذبك إليه راد حمديسة أيو كتسنا هي مداسة والرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة دي سووا شيء وأنا أرى حقيقة عجيبة وقفك عبرة قادنا هي وكو عبرة قادنك ضايع ركبة أوقات كيسن ويا العكتي بالضفي إذا 50-50 وكذا 50 حق يسوي صوتوري 50 بدي بكرش